inuu siyaasiga ciise iyo aqoonyahanka ciise iyo ganacsatada ciise horta dhaqan bay ka wada sameeyeen dhaqanka ay ka wada sameeyeen waxa weeyaan maalinta uu wax barto ciisanimadu biyeer baa kaga daadanaya sideeda anaka ma oo ciisana ma oran karo waxaad ku taageersantiin qof kasto ciisaha ka soo horjeeda inuu ciisaha bahdiyo dhexdhexaad baad ka noqonaysaa maanta maalintii dhexdhexaad la noqonayma laakiin adigu inaad imaaraat iyo maxaa la dhahdaa Ethiopian iyo Soomaali isbarbar dhigto waa laga fiicnaa kaaga sii daran waxaa tiri Djibouti baa ka xun Somaliland xabada saa ugu dul dhacayso Djibouti qofkii kaliya caawinay baa Somaliland xuduudaha dhan ka xidhmay oo Ethiopia qaxooti dajisay dadkii soo dajiyay Djibouti way haayeen ninka maanta Somaliland uga ololeeyo Djibouti dhexdeeda qaxooti xira qaxooti kuma dhex jiro dadku ku dhex jira waraaqada ku dhaxaysta wax kasta ku dhaxaysta marka inaad Ismaaciil Umar baan sahaynaa ama mucaarad baan ahay in loo soo tuunbaraaco waa laga fiicnaa Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir baa hadlay saddex shay oo intuba argagax yihiin oo ceeb iyo dhabarjow ay ku yihiin ummadeeda ayuu yiri waa koow ee wuxuu yiri sheekadii wuxuu ka bilaabay dhexdhexaad waa dhexdhexaad sheekadiisu ciisana sanbiiliin gadabursina sanbiiliin ciise waxaan buu doonay gadabursina waxaan buu doonay qolo ciise yadna fidnad wada iyo qolo ciise gadabursi oo fidnad wada waa dhexdhexaad ya arinta dhexdhexaadka laga noqonayo waa arin 3 bilood ugu yaraan miidiyaha la soo fadhiyay inta ciisaha la baabiinayo in ciisaha dhulka laga qaadanayo in ciisaha la qaxinayo in ciisaha la dilayo in ciisuhu cawaan yahay in uu maxay hideen xeer lahayn in xeerkiisu uu gaal yahay inuu ninka nin kora xataa ciisuhu abaal mariyo beenta halkaaba laga gaariyaa marnaba lagama sheekayn waxyaabaha cajiibka oo xeerkan cajiibka ku yahay ee ummad kasta oo adduunka xeer diraasaysa ay kula yaabi karto lagama sheekayn marka sheeko gowda joogta ayuu Cabdiraxmaan Bashiir dhexdhexaad ka noqday waayo wuxuu sidii markuu labada dhinac eegay midna waa naaskaagii midna waa baha talabaadii ka sii argagaxsan uu yiri waxa la isku hayay uu yiri xeer ciise aqoonsigiisa ma waxa la isku haysto magaalada Zeyla Canaali magaalada Zeyla أنا لما بقولن كرام وحنا لو قولن كرين ده لما بيجيلان ولا إذا يالتي مجال ده عن عيسى هين مجرته حدنين وقالكم مجعابي واجي جميسي كانوا مشيين وده قالكم فاكنيكي عن فرق بقى كأنه مارتي الضومه هدو فينجري بورك تجورا الضومه كدو فينجري واقع كأنه تحس دبب مالو قولن كرارير كوايس كلام مالو قولن كرا وامي مركا dhibaatadii runta ahayd ee meesha taalimaad sheegin waxaad ka dhigtay reero isjiijiidanaya waana narrative iyagu ay sameeyeen oo ahayd ciise gadabursi meel banabad kuma ah waxayna nabadu hayna ciise fidnada wada way taas 3 bilood ka hor dadkii boorama ka soo dhax qayliyay ee aadaacada idil mikrofon ay la dhex marayeen ee leeyahay xeer ciise in lagu xuso aqoonsigiisa Zeyla maxaad ka qabtiin ee na soo caayay na soo fadeexadeynay na soo aflagaadeynay wax kasta nagu soo sameeyay iyay haayeen abti إلا سوى دو أبتي كويه أنا كنا أبتيته أيوها كاس يوها أضيال إذا أنت هتلا تجين عشرين إلى هذين حركة ولي ما نخرسنا ونخرسن دونا ده إذا ما دعي عين سين قد برسوا عيسى لا دقوا حر عيسى ما قرناه تحصل إذا ما دعي كره بينه هي جالس بري ما قرن حر عيسى ولي يوم وده دقناه لكن حر كيس ولي ما نخلي هذا سدة تنجر هدور هذا مركا قرم وده دقناه ما هو يكون دقناه أديك ما أنت لفتك هدي لك ويدي بورمية بونا ياله قد برسوا الله له لكن هدي لك ورا غير السئيو غير بدو ذر إيو إن لو هي ياله هدي لك ورا والله بالله وين واي واحد الله بالله وينس حلك السواحة ذيك سقفك قفي الله بده كل واحد جوكتا ذيك سا مو أوجد لكن قفي الله بده لفتك وجينا مشروع اللي جوسه ودجي أو بالبلار سايته مو أوجد صدح وحاب وحيجا قصيدة وحول الشيخ أنت على Somaliland jiritaankayga waxa ka xun hawshana dabada ku haya dawladda ay ka mid tahay Djibouti Soomaaliya Imaaraadka iyo Ethiopia oo gumeysiga madow ee Afrika fadhiya oo Ethiopia taa waa la ogyahay Afrika markii la qaybsanay qoladii kaliya taa qayb waa inaan ku yeeshano waa Ethiopia waa la ogyahay dhaqan gumeysi qolada kaliya taa waa Ethiopia waa la ogyahay
imaaraadka laftigiisu waa gumaysi waa la ogyahay shalaytadana ugu dambayso ingiriisku wax ka qorayuu lahaa waa dawlad xunoo tuugiina uu lahaa DP war markuu wax ka qorayay waa la ogyahay taana anaka Djibouti Ismaaciil Cumar waxaan ku hambaliyeen inuu dabada ka laagu wuri ka baxa meesha waana la ogyahay Somaliland ku xun waa been hadday ku xuntaan iyaga ka heshiinay anaka ma Soomaaliya wax kasta dhibaato ku haysta Somaliland iyo Somalilandna wax kasta dhibaato ku haysta Soomaaliya iyaga ka heshiinay anaga nooma taala taas laakiin adigu inaad imaaraat iyo maxaa la dhahdaa Ethiopian iyo Soomaali isbarbar dhigto waa laga fiicnaa kaaga sii daran waxaa tiri Djibouti waa ka xun waxaana markaa ku xasuusinaya Somaliland xabada saa ugu dul dhacayso Djibouti qofkii kaliya caawinay baa Somaliland xuduudaha dhan ka xidhmay oo Ethiopia qaxooti dejisay dadkii soo dejiyay Djibouti way haayeen ninka maanta Somaliland uga ololeeyo Djibouti dhexdeeda qaxooti xero qaxooti kuma dhex jiro dadku ku dhex jira waraaqada ku dhaxaysta wax kasta ku dhaxaysta Somaliland meesha ay ka dhiman laadahay wax kasta laga siinay waa Djibouti dad iyo waxay doonaan ahaadaan marka inaad Ismaaciil Cumar baan sahaynaa ama mucaarad baan ahay ina loo soo tuun baraaco waa laga fiicnaa hadalkaan abtiyo inaad hadalka daba keento weeyaan way kaalinta indheergaradku maaha been la soo buunbuuniye taageer ma waa bread iska cad waxaad maanta taageertay waxaa taageertay nin kale leh jiritaankaagu uma bajiraba ayaa taageeraysa waxaa tiri ugaaska gadabursiga markaad la hadlaysay abti baa tiri anna adan abti kula heede abti kaalinta indheergaradku tulkii ugu jiro u soo gal maxamuud darwiish Falastiin markii la leeynay muu aamusino muu oran anigu da Falastiini baan ahay waa ceeb inaan ka hadlo muu oran adii wadankaaga iyo dalkaaga marka la bahdilay maxaad u oranaysaa sajil ana carabi buuri maxamuud darwiish sajil ana ciisa maxaa oran laadaadu af carabina waa garanaysaa nimanka maanta aad soo xigsatiin ma adrayta qoraaladooda hadraawile gaariyada waxa oran qori oo qaateen si tulkooda u difaacaan maanta iniga hadooreeyeen maxaad iniga qori u qaadan lahayn maxaad inigu qoriga aqoonta u qaadan lahayn maxaad qoriga damiirka u qaadan lahayn waxaad ku taageersantiin qof kasto ciisaha ka soo horjeeda inuu ciisaha bahdiyo dhexdhexaad baad ka noqonaysaa maanta maalintii dhexdhexaad la noqonayma maanta waa maalinkii runta la sheegay ween runta inaad sheegtiin baa inaad tiraahdiin igu nacam igu jeclo runtu waa taa runtu maaha qofka cajibi ma inaad tiraahdiin baa wareerkan taariikhda buu leeyahay dhulka buu leeyahay intaas oo dhul buu leeyahay saasuuna u kala socdaa inaad tiraahdiin baa qurxi laga ma la reerkaaga laakiin ha ku duulnado intellectually ugu duusheen waxa kale oo jira niman kale mucaarad u badan oo iyaguna ka zinaysanay runta inay sheegaan siyaasiga ciise iyo aqoonyahanka ciise iyo ganacsatada ciise horta dhaqan bay ka wada sameeyeen dhaqanka ay ka wada sameeyeen waxa weeyaan maalinta uu wax barto ciisanimadu biyeer baa kaga daadanaya sideeda anaka ma oo ciisana ma oran karo waxay lahaayeen labada qowmiyadood ee qoriga la iskugu dhiibayo boorama dhexdeeda yaa qori kaaga dhex qaatay yaa kaaga dhex qaatay tan kale labaad hadii la leeyahay gadabursiga wax loogu dhiibay ciise Djibouti uu ka taliyay muxuu gadabursiga ugu dhaxasuuqi lahay maantada lagu la hadlay waxay doonaan ay sameeyaan tulkooda iyaguna ku garab yihiin maxaa loogu qabsan lahay laguma qabsado cabirka saxda ee wax socdaan hadaad qaadan karayn waa la iska aamusaa qof kasta oo aqoonyahan sheeganaya ama sheekh sheeganaya ama wax uu sheeganaya oo cabir sax aan ka sheekeynay waxaan leeyahay iska aamu laakiin qori afka kaaga dul hayaan sabaya waa gunnimo weyn anakuna gunnimo hidow mali ilaahay hadii laga cabsado waxaan baa qudarayaa ugu dambeyn dhalinta ciise aqoonyahanka ciise ganacsatada ciise siyaasiga ciise qof kasto ciise oo wax uu fahmayaan u diraya narrative-yada beenta la sameeyay runteedii waan liiga fadhiyay inaad Facebook geetiin soo caayani mali dhulaan dhukiina hayn sheegtani mali dad walaaliheen cirdigooga iyo sharaftooda uga fani mali laakiin markuu been ku sheegay been baa sheegaysa inay tiraado wax xaqaaga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh